Ma ogtahay inay kuwan yihiin goobaha ugu halista badan adduunka aynu ku noolnahay maanta? Ka hor intaynaan bilaabin, haylabna lag saarta muuqaalka, sidoo kale aad inoo taabato koobi linkiga si uu muuqaalku u gaadho meel dheer. Mount Washington, buurta Washington ee Mareykanka. buurtan waxaa lagu naanaysaa qaswadaha cimilada. waxay diiwaan gelisay dabiishii ugu xooga badnayd ee abid laga cabiro dusha sare ee dunida, taasoo gaadhaysa in ka badan 370 kilomitir saacadiiba. intaas kuma eeka, heerkulkeedu mararka qaar wuxuu hoos u dhacaa ilaa iyo -40 celsius. dabiisha halkan ka dhacda aad bay u xoog badan tahay. qofka caadiga ahna fursad yar ayuu leeyahay si uu si toosa u hor istaago. 2. Danakil Depression, saxaraha Danakil ee Itoobiya. goobtan waxay u muuqataa sidii meerayaasha qalaad ee aflaamta lagu arko, laakiin dhab ahaantii waa mid ka mid ah meelaha ugu khatarta badan dunida. dhulkan waxaa ka buuxa fulkaanooyin firfircoon, harooyin aashita iyo gaasas sun ah. hawada halkan ka jirta ayaa mararka qaar noqon karta mid aad u halis badan. dadka booqdana badankood waxay adeegsadaan qalabyo gaara oo ilaalinaya. 3. Madidi Park, beerta qaranka ee Bolivia. marka ugu horeysa waxaad moodaysaa janno cagaaran oo qurux badan, laakiin saynisaanadu waxay ku tilmaamaan meel khatar badan. kayntan waxaa ku nool noocyo badan oo dhir iyo xayawaano sun leh. dhirta qaarkood waxay dhaawici karaan maqaarkaaga, halka cayayaanka qaarkoodna ay gudbin karaan sun iyo cudurro halis ah. xitaa taabashada dhir aanad aqoon waxay noqon kartaa arrin khatar leh. 4. Ilha de Guamanda, jasiiradda masaska ee Brazil. halkan waa meesha ugu halista badan adduunka. jasiiraddan waxaa si weyn loo xadiday gelitaankeeda, waxaana loo ogolaaday oo keliya cilmi baadhayaal iyo mas-uuliyiin gaara. inkastoo ay tahay jasiirad yar, haddana waxaa ku nool kumanaan mas. mid ka mid ah kuwa ugu halista badan masaskana waa maskan loo yaqaano Golden Lacet Head. suntiisu aad bay u xoog badan tahay marka loo eego masaska kale. jasiiraddan oo dhan waxaa ka buuxa masas, taasoo ka dhigaysa meel aad u khatar badan in lagu noolaado amba lagu socdo. waxaana halkaas ku yaalla oo keliya nalbadeed duug ah. dabadaawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo, midkii ayaa xoog kaaga yaabiyey? qaybta kommentiga ee hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad falow noo saarto youtube-ka iyo facebookka profilka saaranna aad subscribe dhaado.